khadiija maxamed diiriye waa tusaale 21 sano xildhibaan aan dhicin iyo wasiir aan dhicin ay u tahay shaatiga ciddu doono oo allah subxaanahu wa tacaala rabbi weyne u geliyaa ciddu doonana wuu ka siiba waa haddaad tihiin dad islaam xaqa allah kugu tuso hoos u fiiri sida aysan hoos noogu fiirin jirin hareeraha u eeg sida aysan hareeraha noogu eegi jirin kor hadayin sida ay kor u dayi jireen waxaan leeyahay allah macaakum insha allah بسم الله الرحمن الرحيم أولا الله سبحانه وتعالى أي ما هذا ودن أسقناتي كلجس وحان كهاد لايو وهم بليو ومهد علن إيه حمد النق وايو تاني قول كوين تاني قول كوين waxaan rabaa inaan halkan salaan mahadnaq iyo hambalyo ugu gudbiyo madaxweynaha Soomaaliland mudane Muuse Biixi maadaama Soomaaliland doorashadii isku sidkaneed ee ka dhacday ay ahayd lana dhihi karo oo xaqiiq ah xor iyo xalaal waxaan salaan hambalyo iyo mahadnaq u soo jeedinayaa gudoomiyaha xisbiga wadani hogaamiyaha xisbiga wadani oo ahaa xisbigii uu ku tartamay xildhibaan abukaato barqad jaamac batuun oo soo hormariyay murashaxnimadiisa mudane Ciro mahadsan dhammaan guddiga doorashooyinka Somaliland iyo gudoomiyahooda ayaan u mahad celinayaa sidoo kale waxaan hambalyo iyo bogaadin u dirayaa ciidamada amniga iyo shacab weynaha Somaliland oo isku duuban oo xaqiijiyay in ay deegaankooda nabad qab badqab ugu naaloodaan amniga ka jira Somaliland qofkii libinta xaasida xaashay ama fiicna waxaan qirayaa Somaliland in ay mudan tahay ku dayasho iyo in wax laga barto waxa ugu horeeyo waxaan leeyahay Soomaaliya iyo Somaliland markaan nahay waxaan kaga dayasho mudan in tirakoob la helo xuduudaha na la og yahay deegaanada iyo dadka oo markaas kadib lagu xaq dhowro inta badan na ay ku ilaaliyaan inta yar muwaadiniinta ku dhex nool in looga daydo xeerarka qeexaya iyo qawaaniinta loo dejiyay oo si dhab ah loo dabaqo waxaasoo dhan waxa ka weyn in diinta islaamka ay yaqiin ku tahay dadka mas'uuliyadda sheeganaya oo kale Soomaalida inteeda kale oo muslimnimada iyo islaamnimada sadkoodu yahay haddana waxaad og tahay in Allah subxaanahu wa tacaala uu bini aadamkiisa oo dhan wada karaameeyay laguna kala fadli badan yahay cibaadada ama taqwada waayo Allah subxaanahu wa tacaala dadkiisa waxay ku kala fadli badan yihiin cibaadada cid kale miyaa hadda kaa sugi karta marka inaad adigu kabaha u qaado jawaabtu waa maya intaa markaa aan sii guda galo Soomaaliya waxay raadinaysay 30 sano ee burburka qaran burburku dhacay dimuqraadiyad cod iyo qaf
axsaab iyo xisbiyo tiro badan mana ogola deegaanadooda in la istiro koobo ama la saxo xuduudaha. marka arrimahaasi dhankeen Soomaaliya iyo Somaliland markaan dhaho Soomaaliya mustaxiil soo uma eka in cod iyo qof si dhaqsi ah lagu gaaro. dimuqraadiyaddana waxa ayba ka tahay afka baarkeeda iyo wax in lagu raadiyo. marka waxaan leenahay Somaliland waxaad xaqiijiseen maanta idinka dimuqraadiyad dhab ah. iska daa wax kale doo Soomaaliya qoondo dhibic 5 ah ayaa matalaad ahaan loogu qiimeeyay, welina way ka dhaadhici laadahay inta foodka isku maqoonaysa. beelaha Barqad Jaamac Batuun xildhibaanka qareenka uu ka soo jeedo ma idinla tahay in ayagoo hadda qoondo ay jirto la leeyahay in qof iyo cod wax lagu siin lahaa? 31 sano ee burburkii kadib 4.5 qoondadaas ama kootadaas ayaa ka jirta 21 sano oo ugu dambeeyay laga soo bilaabo 2000 iyo carta. taasaan weli ka dhaadhacsanayn, laakiin annaga aan leenahay iyadoon shilin nooga bixin 5 ku haysana. 31 sano ay jirtay Somaliland maanta ayay si dhammaystiran u xaqiijiyeen dhankaas beelaha Barqad Jaamac Batuun xildhibaanka abukaataha uu ka soo jeedo deegaanadaas waxayna ka mid yihiin muwaadiniinta ku nool oo ah codbixiyaasha weligood qof iyo cod axsaab siyaasadeed xisbiyada jira si dimuqraadi ah bayna fikirkooda u cabiraayeen. halkan aan la ogolayn in aad fikirkaaga haddaad cabirto ma adigii baa hadlaya lagu leeyahay. dad tashaday marka cir waa toli karaan soo lama dhaho taa ka labadeed. haddana inta aan taas ku guda jiro waxaa timid guul taariikhi ah maanta oo ay ka dhabeeyeen dadka reer Somaliland. marka intaan ka gudbo quluubta umadweynta ballaaran ee uu ka soo jeedo Barqad Jaamac Batuun waxa aan ka tirtirmaynin iloobina doonin baraarujinta dhabka hadalkii Dr. Maxamed Cabdi Gaboos. waxaanan iloobi doonin culumaa u diinkii Soomaaliya iyo Somaliland ee ducada iyo hoga tusaaleynta dariiqa mustaqiimka ah la dhinac taagnaa xildhibaanka. muwaadiniintii codka siisay u hibeeyey dadka baahiyaha gaarka ah qabay gaar ahaan lixaadka iyo aragga ee Barqad soo garab istaagay. hal abuurkii abwaanadii aqoon-yahanadii mujaahidiintii saxafiyiintii caanka ahaa haweenkii dhalinyaradii waayeelkii dhaqankii suubanaa ee salaadiinta qaybaha kala duwan ee bulshaweynta Somaliland iyo Soomaali ee ku nool Somaliland iyo Soomaaliya iyo dhammaan daafaha wadamada caalamka qurba joogta la garab istaagay dhiirigelinta iyo bogaadinta. ma iloobi doono haddaan nahay haybta
ama qolada uu ka soo jeedo barqad jaamac batuun xildhibaanka uu matalo dadka uu barqad jaamac ku matalo guud ahaan taageerida iyo garab istaaga idinkoo u muujinayay tix iyo tiraab hadal iyo howraar san oo dhinac walba taabanaysa gaar ahaan haybtayda reer daami oo ugu horeeyo boqorkayga geeska Afrika boqor Axmed Iimaan iyo salaadiinta kale ee beelaha barqad jaamac batuun uu ka soo jeedo waxaa la gaaray in madaxa cunuga hooyo uu ka soo jeedo haddana ay barqad u codayso haybta dadku ka soo jeedo waa hubaa in loo indhabeeli lahaa ama loo indhabixi lahaa inuu guushaa gaaro barqad jaamac batuun isagaa ka dhabeeyey howraartiisa wuxuu haystaa aqoon diini ah iyo mid maadi ah intii ilaahay ugu talagalay dhiiranaantiisa ayuuna uga dhabeeyey hadafka iyo himilada uu higsanayay allihii abuurtayna wuu ku saaciday una dhabeeyey hadafkiisa himiladiisa iyo hankiisa uu ku cabiray waa la kala qof iyo qalbi fiicnaan kara ee lama kala qolo iyo qabiil fiican taasoo ah xaqiiqi jirta haddaanu nahay dad islaam hadda waa inaan nahay dad muslim ah oo allihii abuurtay u ah caabud waxaan rabaa marka axsaabta siyaasadeed dhammaantood waan u wada mahad celinayaa barqad jaamac batuun iyo dhammaan ummadda reer Somaliland waxaan leeyahay hambalyo waad soo gaartay waa lagugu dhabeeyey anigoo huba in axyaa wadan iyo axsaan aan lagu siin jabaqda igama dhagayeeradin waa u soo dhabar adeegay heerka uu maanta soo gaaray hankiisa iyo himiladiisa waayo marka aan leeyahay islaamnimada ma oga waxaa la yiraahdaa doonaa wuu gaaraa dadaalaana wuu qaadaa guusha koobka cisigana caradan ama ciidan ma dul yaallee cirshigaa laga soo baxshaa waa halkii abwaanku yiri sidaa si la mid ah muslim bay ku faanaan ma rumaysna diinkana waxaan leeyahay ha ku baraarugeen dadka Soomaaliya sida Somaliland ugu baraarugsan tahay afkana ha ka reebeen hadday yihiin dad islaam hadday yihiin dad Soomaaliya sidee Khadiija Maxamed Diiriye waa tusaale 21 sano xildhibaan aan dhicin iyo wasiir aan dhicin ay u tahay shaatiga ciddu doono oo Allah subhanahu wa ta'ala rabbi weyne u galiya ciddu doonana uu ka siiba waa haddaad tihiin dad islaam intaa waxaa dheer oon ku soo gunaanadayaa inaan qareenka xildhibaanka barqad jaamac batuun oo aan ninkaan isku haybtana marna aan eedadiis ahay marna aan habarirtiis ahay iraahdo wuxuu waa mas'uuliyad ummad baa kugu ilmahaamaysay dadkaaguna waa ku soo hormariyeen iyo xisbigii aad ku tartamaysay ee wadani laakiin muwaadiniin badan oo reer Soomaaliya ayaa codka ku hibeeyay ilaahayna ku ilhaamay Allah kugu astur xaqa Allah kugu tuso hoos u fiiri sida aysan hoos noogu fiirin jirin hareeraha u eeg sida aysan hareeraha noogu eegi jirin kor hadayn sida ay kor u dayi jireen waxaan leeyahay Allah macaakum insha Allah وبالله التوفيق